haweenka siyaasadda ku jira si bulshadu u support gareyn kartaa ama ay u taageeri kartaa niyo bulshadeenu qaybo kala duwan bay leedahay waxa ugu weyn ee keeni kara in bulshadu taageertan waxa weeyaan in maskaxda bini'aadanka la dhiso in la tuso dadkan in hooyadani ama haweenkani ay leedahay awood ay wax ku bedeli karto inta badan dumarku waxa weeyaan waa dad daacada xiliyada shaqooyinka ay joogaan ama ay hayaan shaqooyinka iyaga awoodda maxay mas'uuliyadooda ah waa kuwo uga soo baxa si toosan shaqadoodu waxay leedahay daahfurnaan shaqooyinka haweenku waxay leeyihiin isla xisaabtan marka in bulshadii la tuso bal la isbarbar dhigo ila wadankeenu ma aha ragun kama soo shaqeyn haween wasiiraan soo yeelanay haween maxay haytay muxuu agaasimayaan soo yeelanay in bulshada la tuso haweenkii Soomaaliland ee nabadaynta Soomaaliland qaybta weyn ka soo qaatay ee wadanka waantiisa iyo dib xasiloonidiisa qayb ka ahaaba tusaale ah in bulshada la tuso awoodaha dumarka ee qarsoon oo la yiraahdo in Marwe Heblaayo markay xilka haysay waxay wax ka bedeshay inta documentariyo dadka lagu qancin karo soo taabsiya waxay bulshada bedeli kartaa maskaxda fikirkoodii hore ay bedeli kartaa doodo loo sameeyo dhalinyarada dhexdooda in laga doodo iyada laftirkeedu waxay keeni kartaa in dumarka haweenka u noqoto taageero u noqoto oo waxa soo baxaya xaqiiqooyinka soo baxaya dumarka laftirkooda siyaasadda ku jira waa dumar wada dhisan oo wada aqoon-yahan ah waa gabadh kasta halka ay doonayso waa gabadhii ku habboonayd taana inay bulshadu aragto oo sidan activity-yada sidan oo kale waraysiyada noocan kale ay siyaasiyadu ka soo muuqato iyaduna bulshada wax ka bedelaysa oo waxay keenaysaa in bulshadu ay support garayso ma dhawaayo taageeraan ta dhaqaalaha yahankana dhaqaalihii ka hadasho maxay haytay aqoonta xeel dheer la aqoonti ka hadasho dalka waxay keenaysaa bulshada inay waaqicoodii bedesho marka waxyaabaha keenaya in bulshadu support garaynayso waxa weeyaan in hota dumarkan iyo bulshadii la istuso oo is arkaan si loo arko gabadhan inay tahay gabadh ku habboon oo tayo leh halka ay u socoto ama golaha deegaanka noqoto ama golaha wakiilada ha noqoto